السلام عليكم كسو دواada calan qaran magacaygu waa Cabdishakuur Xuseen muuqaalkan waxa noo soo gudbinaya Abbas Cabdi Xaashi walaalayaal waxaan fiidiyogan u soo duubnay inaan muujino dareenkeena Soomaalinimo iyo sida aan uga xunnahay xariga xaqdarrada ah ee loo geystay wariyaha Soomaaliyeed samafalihii aynu wada naqaanay Cabdimaalik Muuse Caldoon haddaba maxaa loo xiray Cabdimaalik horaantii bishii Febraayo ayuu wuxuu yimid magaalada Muqdisho aad baan ugu soo dhaweynay waxaan u arkaynay walaal Soomaaliyeed oo aan isku fikirnahay markii uu halka yimid wuxuu aad u cadeeyay fikirkiisii ahaa Soomaalinimada iyo aad ugu faraxsan yahay doorashadii Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu ku soo baxay haddaba wariyaha Soomaaliyeed markii uu ku laabtay Somaliland ayaa waxa lagu xiray madaarka caasimadda Hargeysa Cabdimaalik runtii laba cisho iyo laba habeen ayuu ku hooyanayay xabsi gaar ah oo ciidamada booliska ay leeyihiin oo ku dhow garoonka diyaaradaha kadib waxa la wareegay ciidamadii CID-da ama dambaarista ee Somaliland waxaana maalintii ay la wareegeen ilaa maantadan uu ku xiran yahay muddo isbuuc ku dhow xabsi loogu talagalay dadka lagu soo eedeeyay burcadbadeednimada iyo dadka lagu soo eedeeyay xagjirnimada ama argagixisanimada waxa aad nasiib xumo u ah in mas'uul dawladeed oo xil wasiir haya inuu ku magacaabay wariyihiisa mafalaha ahaa ee aad wada taqaaneen inuu yahay qof xagjir ah xaquu doonaba hajire Cabdimaalik wuxuu ahaa qof Soomaalida jecel Soomaalida oo dhan ay u sameeyeen wuxuu ahaa qof ka weynaaday tuulo magaalo gobol maamul dawladeed iyo firqo ama meel gaar ah wuxuuna u istaagay Soomaalida gumaysiga nooga maqan ee Ethiopia naga haysato kuwa Kenya naga haysato Soomaalida Djibouti ee walaalaha aynu dariska nahay Soomaaliyeed oo marna Soomaalida aan ka bixin iyo dabcan Somaliland uu ku noolaa iyo halkan oo ah magaaladii Muqdisho caasimadda ummadda Soomaaliyeed walaalayaal waxa muhiim ah in la fahmo fikirka ah qadiyada Soomaalinimada ma ahan mid ku kooban deegaan iyo gobol iyo dawlad gaar ah laakiin Soomaalida waa dad Soomaaliyeed oo isir iyo ab intaba isku ah Soomaali oo aan marna Soomaalinimada ka bixi karin afka mideeya dhaqanka mideeya waa dad weligood Soomaali wada ahaa dawladnimadan iyo caalamkan casriga ah mar dhow ayuu yimid waayo carabnimada lagama baxo intaasoo dawladad oo carbeed ah jira haddana carabnimada isagama baxaan marka wuxuu ahaa wariye ka weyn meel gaar ah in lagu tiriyo runtii waxaanu leenahay xorriyadiisa hal la siiyo annagu haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee wariyaasha ah ee calan qaran ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya aad baan uga xunnahay waana la qaybsanaynaa xanuunka horeyna waa u sheegnay haddana waa sheegaynaa walaalayaal waxaan rabnaa inaan wax yar idin ifino sababta Cabdimaalik u xiran yahay sida aanu warka ku helnay taliyaha ciidamada booliska Somaliland oo jooga magaalada Jigjiga ee Ethiopia ay gumaysiga ku haysato ama dhulka Soomaaliyeed ee naga maqan ayaa amray in Cabdimaalik la xiro taliyahaas wuxuu ka qayb galay munaasabad iyo dhoolatus ay sameeyeen ciidamada Ethiopia markii isagoo dhul Soomaaliyeed oo xoog lagu haysto jooga in wariye Soomaaliyeed oo ku caan baxay Ethiopia naceeb inuu amray in la xiro waxaan u aragnaa xaq darro Cabdimaalik wuxuu nabcay Ethiopia waa Ethiopia iyo Soomaaliya marna walaaltinimo iyo wanaag nagama dhaxin waxaan ahayn laba dal oo caratooy ka dhaxaysay dhul baan nooga maqan dad bay naga haystaan dadka Soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa insha Allah inay gobonnimo ku noolaadaan haddii ay Soomaaliya ka mid yihiin iyo haddii ay dawlad kale oo gaar ah yihiinba laakiin waxa muhiim ah in qofka Soomaaliga ah ee aqligiisu ka weyn yahay waxyaabaha kooban in lagu xadgudbo taas baan aad uga xunnahay waxa kale oo runtii wax looga xumaado ah meesha uu ku xiran yahay oo ah xabsi loogu talagalay dad dambiyo waaweyn galay ilaa ya hadda Cabdimaalik lama geyn maxkamad intaad maxkamad geysaan ma tiraahdaan dambigaas aan ku eedaynay dambigaas naga galay waxaan hubnaa inaysan jirin aabihii Soomaaliyeed ee burco ku dhibaateysnaa ee geedka hoostiisa jiifay dadku ay
dhibaateyn jireen oo qorraxda iyo cadceedda iyo qabowga iyo maalin iyo habeen bahalaha ay meesha ku cunayeen geedka hoostiisa ninka ka soo wada ee guriga u dhisay ee furaha farta ka saaray maalintaas Cabdimaalig wuxuu ahaa qof dambiile ah mase maanta oo dawlad Soomaaliyeed u dhalatay uu hambaliyay ayuu wuxuu yahay dambiile uma aragna inuu yahay dambiile waxaan u aragnaa qof mudnaa inta la loo dhiso ma mudna in xabsi lagu xiro ma mudna in lagu xiro jeel loogu tala galay burcad badeed iyo argagixiso wuxuu mudnaa in la maamuuso oo la qadariyo tan kale aan rabo walaal inaan ku soo gabagabay waxay tahay Cabdimaalig wuxuu ii sheegay markii uu halkan ka tagay inuu rabo inuu wareejiyo lacag walaalo Soomaaliyeed ay ugu deeqeen abaaraha horay ayuu abaara badan lacag ugu deeqay oo adogeydeen hadduu Ilaahay ku roon yahay wuxuu rabay inuu tago halkii uu ka howlgalayay oo lacagtaas abaaraha loogu tala galay qaybiyo kadibna uu isku diyaariyo safar uu kaga qayb gali doono abaalmarin caalami ah oo insha Allah lagu guddoonsiin doono wadanka Ingiriiska ama UK abaalmarintaas oo ah Soomaaliya Award ama abaalmarinta Soomaalida ay bixiso caalamiga ah wuxuu ahaa wariyaal badan oo Soomaaliya laga soo dhaxushay annagu wariyaal aha u qirsan inuu u qalmo marka waxaan leenahay walaalayaal aan ka gudubno aan ka tanaasulno aan ka tagno aan ka weynaano waxyaabaha yaryar qabyaalad iyo qurun iyo isnacayb meel lagu ma gaaro wada jir iyo wax wada qabsi iyo midnimo iyo horumar baa wax lagu wada gaaraa waxaan leenahay kufaan Soomaalinimo walaalaha calan qaran ee dal iyo dibad jooga iyo saaxiibada nagu xiran dhamaantiin waxaan idin leenahay guushu ma foga insha Allah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh